dalka Sacuudiga muddo ka badan 30 sanadood ayaa markii ugu horeysay waxaa toddobaadkan dib loo furay shaleemooyinkii wadankaasi. Shaleemadii ugu horeeysay ayaa waxaa laga daawaday magaalada Riyadh waxaana lagu furay filimka caanka noqday ee Black Panther ee ay sameeyeen jilayaasha madowga Mareykanka. daawadayaal badan ayaa ka qayb galay dib u furista shaleemooyinka kadib 35 sanadood oo ay mamnuuc ka ahaayeen Sacuudiga. xafladii furitaanka shaleemada ayaa waxaa ka qayb galay dad caan ka ah gudaha iyo dibadda Sacuudiga. maamulayaasha shaleemooyinka ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin in dakhliga ka soo xarooda tikidhada uu qayb ka noqon doono dhaqaalaha waddanka. waxaa kale oo ay sheegeen in dadka loo ogol yahay shaleemooyinka ay yihiin kaliya dadka qoysaska ah. go'aanka dib loogu furay shaleemooyinka Sacuudiga ayaa qayb ka ah hindisaha dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ee ku qotama hiigsiga dhaqaalaha boqortooyada ee sanadka 2030. furista shaleemooyinka ayaa waxaa bishii December ee sanadka 2017 ku dhawaaqay wasaaradda dhaqanka iyo warfaafinta Sacuudiga. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in qorshuhu yahay in Sacuudiga laga furo 350 shaleemo oo laga daawan doono 2050 dhalooyinka soo gudbiya muuqaalada ilaa laga gaarayo sanadka 2030.